Malcolm X oo ahaa wasiir soo maray Amerika kadib markuu soo islaamay isku bixiyay magaca Alxaaji Malik Al-Shabaas waxa uu yiri markasta oo aad aragto qof libinta gaadhay adiga in ka badan ogsoonow qofkaasi waxa uu sameeyay wax aad adigu sameyn. Napoleon Bonaparte oo ahaa boqor Faransiis isaguna waxa uu yiri qofka ku yiraahdo ma karayo waxaad ku tiraahdaa isku day, qofka ku yiraahdo ma garanayna waxaad ku tiraahdaa baro, qofka ku yiraahdo ma dhici kartana waxaad ku tiraahdaa tijaabi. Mustafa Al-Galayni oo ahaa shaacir reer Lubnaan ah waxa uu yiri adkaysigu waa furaha guusha, heli mayno xaalad adag oo aynu u adkaysan oo ina gaarsiin karta hadafkeena. John Charles oo ahaa ciyaaryahan kubadda cagta waxa uu yiri kuwa fashilmay waxa ay u qaybsamaan laba nooc, kow kuwa fakira oo aanan shaqayn iyo kuwa shaqeeya oo aanan weligood fikirin. Friedrich Nietzsche oo ahaa filosof Almaaniyaan ah isaguna waxa uu yiri waxa jira qof khaas ah oo dhadhamin dhadhanka guul darrada, qofkaasina waa qofka bilaa hadafka ah.